madaxdayda qaranka aad baan u salaamayaa midnimadii ma sheegi karo laakiin ixtiraamkayga oo dhan baa haysataan madaxdaydii qaranka tihiin salaadiinteedaan salaamayaa jaamac ilaahay baa ku simay aabbahay saaxiibkii buu ahaa inankiisii oo gaboobay baa caawana xafladda kala soo qayb galay markaanu israacnu dadka ku dhahda adeer baan u ahay ayay ku dhahdeen isagaaba kaa weyn waxaan ku idhahdaa ciyaaruhu faa'iidadaasay leeyihiin si aad u qurux badnaataan sida jaamac karaacin ciyaaraha joogtay markaa waa fariin dhalinyarada ku socota suldaankayga suldaan cali isagana waan u ducaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa waxaan intaa ku darayaa weliba labada maalgashada labadaba inaanu isku nahay bahdii suugaanta oo runtii ah soomaalidu halka ku dhaatay walaalo ku tahay halkaa waxaa ka muuqda adeerka hadraawi oo ah qof abwaankii geeska africa intuu soomaali dhaafay gabayadiisa la turjumaya adduunku akhriyey sharaf bay idiin tahay in reer burco ahaan uu qof noocaasi idinka dhashay reer somalilandna sharaf bay u tahay in qof noocaasi ka dhashay soomaalina sharaf bay u tahay in qofka noocaas oo kaliya naga dhashay ilaahay caafimaad baan uga baryayaa taariikh wanaagsan buu ka tegayaa dad baa iska nool oo iska dhashay oo adduunka iska yimi oon waxna ku soo kordhin waxna kala tegin hadraawi maanta taariikh buu kaga tegayaa magac buu kaga tegayaa waynu noqon karnaa hadraawi oo kale halkan aan hagaajisano dadkana tawfiiqdooda iyo midnimadooda ha loo ilaaliyo dadkani midnimay u baahan yihiin walaalnimay u baahan yihiin wadajir bay u baahan yihiin kala tafaraaruq iyo kala abtirin iyo maaragtay qabiil uma baahna waxaan reer burco u sheegayaa markii ciyaaro gobolladu dhacayeen kooxda quraateen la fadhiistay kooxda quraateen u tegey gobolka quraateen kelmad u hibeeyey gobolka togdheer bay ahayd sababtuna waxay ahayd mudnaantay lahaayeen burco laga maarmi maayo togdheer laga maarmi maayo waa gobol hadduu isagu inoo wanaagsanaado waxa xun bay diidaan waxa wanaagsan bay jecel yihiin laakiin baryihii dambe xoogaa ficilkii baa laga yara qaaday intaas suldaanku sheegay barya gabeel baa la dhex maaragtay dhigay insha allahu tacaala intaasina way dhimanaysaa waa laga dhex qaadayaa midnimaynu ka shaqaynaynaa wanaag baynu ka shaqaynaynaa burco hagaagta somaliland oo hagaagtay weeyaan burco waa meesha quraataynu ka odhan karno wixii qaldan waxbaa qaldan waa meesha quraataynu ka odhan karno qofka geesiga intuu ka soo baxo idhaahdo waddadaynu haynaa waa waddo qaldan marka burco wanaagsanaata waa ummadda somaliland oo wanaagsanaatay qofna taa markaa maaragtay kama qabo wax dhibaataa waxaa kaloo idiin sheegaya walaalayaalow halkan dad qiimalaa ka hadlay dad sharaf labaa ka hadlay hadallo micnale oo macno weyn bay yidhaahdeen laakiin soomaalidu hadalka ma weelayso way huguntaa way hadashaa iyadoo hadal wanaagsan la leeyahay hadalladaa wanaagsanee halkaa laga yidhi aynu weelayno aynu sidooda u qaadno anigu waxaan aaminsanay baan idiin sheegayaa waxaan meel walba ka idhaa baan idiin sheegayaa idinku somaliland baa leedihiin way tartamayaane soomaali hal magaalo isugu iman doontaa bal hadalkaygaa si fiican u dhegaysta soomaali hal magaalo ayay isugu iman doontaa waayo tiradeedaa yar magaaladaasi waxay noqonaysaa ma burca ma boorama ma hargeysa ma gaarisa ma muqdisho ma jigjiga aan u garan maayo laakiin waa magaalada rag hesha rag waxaa garbaxa oo u shaqeeya hesha waa magaalada la qurxiyo la bilciyo waa magaalada adeegyada qofka bini'aadamka u baahan yahay laga helo waa magaalada martida lagu soo dhaweeyo waa magaalada ammaankeeda la sugo waa magaalada aynu kaga raysanayno baalashaha iyo kabaha boodhka leh waa magaalada dhirta leen cimiladeedu qurux badan tahay ee lagu nasan karo aan kulayl lahayn magaalada noocaasa cidda samaysatuma horta loo imanaya waa magaalada dhaqaalaha leh waa magaalada fursadda leh waa magaalada shaqo abuurka leh maadaama aynu dhalinyaro u badannahay waa magaalada le meelaha shaydaanka la iskaga naaro sida halkan oo kale maqaaxi qurux badan oo lagu nasto oo lagu raaxaysto markaa magaalada tartankeeda galo oo geliya dee reer burcaa tihiin tartan baynu gelaynaa halkan guddoomiyihii ku hadlayay afka saxaafadda ayaa si fiican u yidhi waxba yaynaan ku daalin magaaladeeba caasimadda labaada burcaynu caasimad ka dhigi karnaa magaalo la isugu yimaado ka dhigi karnaa magaalo lagu nasto ka dhigi karnaa aniguna insha allahu tacaala magaaladii yaradan ku koray baan isleeyahay haddii fursadda lagu siiyo aad u shaqaysid haddii fursadda laysiin waayana waxaan isleeyahay ilaahu midkaa wanaagsan keen ood la taliso oo waxaad sida aad u sheegto anu may qof xun qof isaguna kursi doonaya ma ihi
qof ku soo iimaan la meehi qof ku haliilaya meehi qof qabiil iyo tolaay la meehi waxaan isleeyahay xal baad haysaa 6 mushkiladood Hargeysa albad xallin kartaa caasimad baad ka dhigi kartaa Soomaali oo dhan baad isugu keeni kartaa baan isleeyahay haddii aniga noqon weydin Ilaahay mid kale wanaagsan hayna siiyo ciyaaraha gobolada soo socda 4 sano ganaax ahayd waan codsanayaa in laga dul qaado gobolka Togdheer laakiin shuruudu waxa weeye ciyaaraha soo socda haddii Burco xitaa xaar lagu seedheeyay dul qaadato inay iyaduna isu dul qaadato inay isjeclaato inay badiso inay koobka soo qaado intaasaan idinkana markaa shardi idinkaga dhigaya insha Allah ta'ala mulkiilayaasha hudheelka Allah barakeeyo magaalada Burcana magaalo wanaagsan oo dalxiiso inuu isugu nimaadno inuu ku nasano imika Hargeysa halkaasaan kaga baxaya igaraalahow imika Hargeysa waxay noqotay magaalo aynu isugu wada nimi dabeetana ciriiri bay noqotay sixmad bay yeelatay kuleyl bay yeelatay lagu noolaan kari maayo lagu raaxaysan kari maayo way adag tahay xalku waxa weeye in dadka laga soo celiyo sida quraate laga soo celinayo waxa weeye sida quraate dadka laga soo celinayo waxa weeye aan ismaqalo sida quraate dadka laga soo celinayo waxa weeye in magaalooyinka Soomaaliland ay mar wada dhaqaaqaan oo inta adeegta la Hargeysa Burco laga helo marka jaamac iyo cali waxay sameeyay wixii ugu wanaagsanaa dadkii Burco u dhashay bay soo celinayaan nin kasto maal haystaan oo Burco maal gashaasan dadka u soo celino Hargeysana marka ay u